booqashadan uu maanta ku yimid xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamankunji ee xaafadda Islii ayaa waxa uu ku indheyndeynayay wadooyin uu dhismo ka socdo iyo waliba qaar la dhameystiray waxaana uu warbaahinta kula hadlay bartamaha xaafadda Islii isagoo ka warbixiyay booqashadiisa. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan booqasho ku imaado xaafadda annagoo uu noo furmay jidkan January oo muddo badan dhismo ku jiray. dawladda Kenya ilaa 30 milyan oo shilin bay ku bixisay dhismaha jidadkan labada jid ee First Avenue iyo January waa laba jid oo waaweyn ganacsiga iyo isgaarsiinta xaafadda ayay wax weyn u dhimayaan oo ay ka tarayaan. dhanka kalena xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi ayaa waxa uu uga digay dadweynaha ku dhaqan xaafadda Islii basaska matatuuga loo yaqaan baabuurta waaweyn iyo waliba gawaarida sida gaarka loo leeyahay inaysan baabuurta dhex dhigan wadooyinka la dhameystiray waxaana hadaladiisa kamid ahaa inay ka ilaaliyaan wixii waxyeelo u geysan lahaa mesela nimanka baabuurta waaweyn leh inaanay marin meelaha aan loogu talagelin baabuurta inay maraan nimanka baasaska leh inaanay saliida dieselka aanay ku shubin xaafadda dhexdeeda iyo jidadka dhexdeeda waxyaalahaas oo dhan waa xadgudub loomana dulqaadan karo runtii waa inay iska ilaaliyaan haddii kalena hadde sharcigun baa lala tiigsan doonaa. shicibkana waxaan leeyahay maadaama jidadka laydin dhisay hadde qashinka iyo aad ku guraysaan meelahan ka ilaaliya oo iska gura si fiican oo wanaagsanna jidadkan ugu isticmaala oo ganacsiga iyo wanaagga xaafadda sii wanaajiya. ugu dambeyntiina waxa ugu baaqay ganacsatada yaryar ee wadatooyinka inay ka guuraan wadooyinka waaweyn isla markaasna ay raadsadaan goobo kale. kuwaasi waa inay ka baxaan xaafadda waa inay ka baxaan oo meelo kaleeto oo khaasa loo sameeyaa ma suurtoobi karto in suuqa sidaasi loo buuxiyo ganacsigii baa adkaaday tuugadii baa badatay isgaarsiintii baa ciriiri noqotay marka kuwaasoo kaleeto waa in jid ka dambeeya jidadka kaleeto inaan u samayno meel khaas oo iyagu beecmishta. Cabdicasiis Ibraahim Aldheere Home Cable TV magaalada Nairobi.